إكران حسين فارح oo gabadh Soomaaliyeed oo ku nool dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay ayaa sheegtay in sawirkeeda si khaldan loo isticmaalay ayadoona lagu khalday gabadhii Soomaaliyeed ee geeriyootay Allah naxariistii janno hasiye Ikraan Tahliil Farax oo ka mid ahayd sirdoonka NISA ee dalka Soomaaliya gabadhan oo aanu ku booqanay guriga ay ka degan tahay magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee dowladdeegaanka Soomaalida ayaa ka warbixisay sababta keentay in sawirkeeda lagu khaldo Ikraan Tahliil Allah u naxariistee waxayna cadeysay Ikraan oo gabadh qurbo joog ah in ay ka siman yihiin gabadhii la dilay 5 siyaabood oo kala magacyadooda iyo magacyada awowgooda oo isku mid in ay wadanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen in ay da'da ay ka siman yihiin in wajiyadooda ay is shabahaan in magaalada Birmingham ee wadanka Ingiriiska ay ku wada noolaayeen haddaba waata Ikraan Xuseen oo sheegtay inay ka cabsi qabto in loo dhibaateeyo sawirkeeda sida khaldan loo isticmaalay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ikraan Xuseen Farax u dhalatay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qoraxay ku sugan degmada Shilaabo laasha Ikraan Tahliil Farax oo magaca iyo ka awowga iyo magaca Ikraan baan wadaagno gabadhaas oo la isku lifaaqay sawirkeeda Allah naxariistay sida la sheegay ay dishay al-shabaab waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo familkeeda qaraabadeeda ugu dhowba maadaama sawirkeeda la isku lifaaqay waxaan ka codsanayaa ummadda youtuberada cid kasta oo social media isticmaasha wariyaasha bajajka caanka BBC-da kulli inay ka saaraan sawirkeyga maadaama aan ahayn gabadha dhimatay ahayna Ikraan Xuseen Farax gabadha dhimatay Allah naxariistay tahay Ikraan Tahliil Farax waxaan u sheegayaa dhammaan inta isticmaashay sawirkeyga maadaama aan ahay gabadh qurbo joog ka timaaday Ingiriiska waxaan codsanayaa maadaama caqabadii u keeni karto sawirkeyga la isticmaalay in laga saaro baraha bulshada raaligelinna laga bixiyo si waliba degdega caqabadu waxaan u maleynayaa inay ka timid maadaama aan anigu Ingiriiska ka yimid ayaduna Ingiriiska tagtay in caqabada keentay in la isku kaana khaldo ay tahay midaas baan u maleynayaa waxaan si naxariis looga codsanayaa cid kasta oo isticmaashay sawirkeyga inay ka saarto